jidhkaagii hooyo waxaan ahay laga jaray hooyo jidhka midaan hooyo waan ku jecelahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان سلام يا دمان ومد الصوماليات مين وبأدونك كجوان إن شاء الله. إن قارهان وحان سلام يا أصحابتك وحيرين جنال كي فرحي إبراهيم ويلكم. إن أصحابي ساهر إذن كل شيء وحان أركو أني أنكيا وأن سوقد بيا ما شاء الله. أصحابتي القيمة إقايا بدن وصومالويني waxaan maanta aan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo. waxaa soo baxday hees oo uu qaadayo fanaanka caanka ah ee la yiraahdo Omar maasha Allah tabaarakallah. hees fiican uu qaaday fanaankeena, laakiin markii dhinac loo fiiriyo waa hees oo macna qabiilada dhan oo Soomaali ka mid ah oo nooc walba qabiil uu yahay oo ku jirto heestaas. mar waa ku fiican yahay ay qabiil ka sheekay oo ka hadlay. markii labaad wuxuu isku diray Omar dhalinyarada Soomaaliyeed maanta qabiilka ka soo gudubtay shaar qabiilka iska soo siibtay dhalinyaradii is aragtay inay qabiil waxba astareen ogaadeen oo hadda wixii ka dambeeyay macna dhalinyarada Soomaaliyeed oo is jeclaaday oo loof isku noqdeen oo dhinac walba isku duuban. Omar hadda wixii uu kala daadiyay ummadii israacdiyo haddana kala jajabiyay sida ani aan u arkay ra'yi ahaanteyda. muxuu ku kala daadiyay wuxuu ku kala daadiyay waan idin tusi doonaa hadduu Ilaahay awood sare ogolaado insha Allah. qabiilada ka mid ah amaana qof warka wiilashii dhalinyarada wuxuu iyo gabdhihii wiilashii asxaabe Omar wuxuu leeyahay heesta asaga alifay oo ku luuqeeyeen. laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed macna sameeya TikTok oo contact ku ah oo iyaga dhexdooda isku aadiyo hooshas waxay sameeyeen intay heestii Omar ay qaadeen TikTok saareen. waxay u saareen si qaldan. maxay sameeyeen markii oo la dhaho qabiilada uu dhaho ma saan baata ma qabiil ma jeertee ma tahay ma ogaadeen baa tahay ma habar gir baa tahay markuu dhahayo cunugi TikTok dhalinyarada TikTok ku jira muxuu dhahaa aniga markii la dhaho ma habar gidir baa tahay muxuu dhahaa xoogiisu saan dhahaa. markii la dhaho ma habar gidir baa tahay kii aan ahayn wuxuu dhahaa maya asoo ka xun oo nacaaytamaayo uu dhahaa maya. kii oo majeertee ma tahay la dhaho haddii majeertee ay tahay hay leedaa majeerteena ah loo fix sameynay haddaysan ahayn xoog dhisa maya waa cayne saani dhehe sanka iyo gacanta inta isku saarto uf waay camal ay dhehe qabiilkaaseeti dhalinyadii dhan qabiiladii sidii waxay kiiya oo wuxuu dhaha waa ahay waa ku faanaa xoogiis iyo wixiis ku tusaa. kii aan ahayn wuu caytamaa. marka waxaa dhici karta Soomaaliya reer TikTok aan bahaysta caawa ay iga shidan tahayba insha Allah. Omar waa soo heesi caadi waay normaal waay weligeeda la heesi jiray hees inkastoo tan hees qabiil ay tahay inta qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku jirto waan idin maqashin doonaa insha Allah. waa idin tusi doonaa qaar ka mid ah qabiiladan waa hilmaame sida qabiilka idinka arki doontii aan inaa magacaawo marabe qabiil noocaas uu hilmaama jira qabiilo badan uu ka tagaa jira laakiin badanaaba 90% wuu sheegay maasha Allah. marka dhalinyaradii ma ogaadeen baa tahay maya ma ku dhahaye waa ku tilmaama wuuna caytamaa sanku taabana uf waay camal kid waay camal ma wargir baa tahay sanka uf waay adi ma abgaal baa tahay ha farxaday ku tusayaan loofkaas oo gacanta saan la dhahay soo saaray waa idin tusi doonaa kaasna insha Allah. marka Omar oo khayr Allah ku sii walaalkay maca fanaanka Soomaaliyeed waxaa isku dirtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo qabiilkii oolka hor uuna oo maamooyinkooda eelkooda soo barbaariyeen haddana la ogaado inuu qabiil wax batareenin macnaha ilmihi hadda waxay noqdeen dad iscaayna TikTok dhexdiisa inay isku caayaan. taasna waxaa sabab ah heestan jadiid aad maanta soo saartay baryahanba socoto insha Allah. marka walaalkay heesaha soo saaraysa ha ahaadaan heesa nuxur leh ha ahaadaan heesa Soomaali jecel ha ahaadaan heesa Soomaali is jecleysiiso marabna anaga wax san kala qabsanayo wax xoog la isku tilmaamayo nin xoog ku yar ma jiro nin kana uraa ditraaki kal waa ura kul Soomaali dhan bad meesha ka galan hal malaayo hal koole waa uraa leh
wax la kala bixinayo marabna Omar heeska soo diraysto waa hees Soomaali jecel wadani isku duwan inay ahaataa waxaan aad kala qaado adigii waa soo heestay normal laakiin dhalinyaradii kala shaandheys waa kala bixiyeen ay qabiila ku jiro qof walba qabiilkiisu uu faalina kan markuu heest qabiilkaas uu maqlo waa caaytama kan kalena markuu qabiilkiis maqlo wuu farxaa macna inuu loof ku yahay waxa soo sheesheega marka nin walba qabiilku yahay asuu anfacaa kii loofku een asuu anfacaa kii oo uf dhahan asuu anfacaa waxna galma laakiin ana waxa cadeynayna inay Soomaali baanahay معن هجر جديري مرصدة مياتا وقادهن كداده أبسكو المياتا هاي يا مالدر يا ويتين كايري معن هجر جديري مرصدة مياتا وقادهن كداده أبسكو المياتا هاي يا مالدر يا ويتين ماذا كيعيسي أبقاليو أشورهن مياتهاي جير مكاني جل ما هو رهان نساقيو سمرهم كما قعالي إيساها مقوينيو مريحهن مياتهاي كل هاقيو سمرهم كما قعالي إيساها مقوينيو مريحهن مياتهاي كل ما كقادو واد ما هو رهان نساقيو سمرهم كما قعالي إيساها مقوينيو مريحهن مياتهاي كل ما كقادو واد ما هو رهان نساقيو سمرهم كما قعالي إيساها مقوينيو مريحهن مياتهاي كل ما كقاد ما هو رهان نساقيو سمرهم كما قعالي إيساها مقوينيو مريحهن مياتهاي كل ما هو رهان هجر جديري مرصدة مياتا وقادهن كداده أبسكو المياتهاي يا مالدر يا ويتينكا معن قولada iishe kiski qaadeen miyaata isa idiga faclaata macan dhul bahanta sangeli miyaata macan hagar jidire iyo mursade miyaata ugaadehen kadhaadhehe أبسكو المياتهاي يا مالدر يا ويتينكا مريحهن مياتهاي كل ما كقادو واد ما ملتعشي ما تركهن مياتهاي عن قولة دايشي أصحابتي الغالي قيمة مدن وصو عرقتين وحياستا سيدي لور روغي وقويل لو بدلي maadaama oo heesaha qabiilada Soomaali kamid ah oo Omar soo alifay ahayd oo maanta dhalinyarada saasay u bedeleen qofka qabiilku ahayn markii la gaaro waa caaytama markii qabiilkiisa oo la gaarane uu qoslaa macnaa wuxuu tusaa dadka inuu asaga ka dhasho dadka fahamsiinaa waxaas waa qalad adiga hadaad ahayn mariixaan waxaa laga yaabaa ilmaha inay noqdaan waxaa laga yaabaa inay macnaa adeerka abtigaa uu ahaado saasoo kale ay qabiil majeerteenka saasoo kale ogaadeenka saasoo kale dirta saasoo kale marka anaga dhan waxaana abtiyo eesimo saanaan isku dhaxuro Soomaali waa anaga hadda inaan saad isku kala bixino isku baabi'in hadan aan ka tanaasulno mar dhow isku soo fiicnaano isku soo niideen isku soo dunti hadana hees iyo wax hadan aad la qaadataano booski aad noo celisaa waa laga fiicnaa dhalinyaro waxaan leeyahay booskaas oo geeseen heesta ma jirto heesta waa hees caadi ah hala heeso halu farxo halu sheekaysto sidii lagu ka saa TikTok dhaaf waxaan aad bedelaysin dhalinyarada naga daaya qabiil ma rabno ilaahay ka cabsado insha Allah fanaanka heesta soo u qaado idinkan iska daay waxaan iska dawareejinaysin insha Allah asxaabe TikTok heesta oo qabiilku aad u badan tahay aniga intaas idin la wadaagay
dhalinyaradana qaar si fiican u jawaabayo waa jira oo dhahay aniga Soomaali ahay qaarna saa hadda arkaysa inay ku jawaabayaan insha Allah marka naga daay walaalayaal naga daay asxaabta qiimaha qaaya mudan haddaa ka hesheen subscribe and share like ta waa xaqiina anigana sidoo kale waxaan diyaar u ahay inaan idin la wadaago wax walba insha Allah biidmillaahi alkariim Soomaali waa Soomaali weeyaan wax la kala qaadayo ma jirto intii hore isku baabi'in ilaahay bedelkiis bedel khayr qabo dhalinyaro kale cusub nadiif ah Allah noo keen insha Allah intii naga dhimato Allah raxmado mar labaad marabna inaan qabiil iyo rafaad damba noqono isku baabi'in qabiil insha Allah dawlad caadil ah oo nadiif ah Allah noo soo saqiro insha Allah biidmillaahi alkariim subscribe share to xaqiina insha Allah community waxa adiga u maleeyay ana saa u maleeyaan ka hadli idinkan waxaan jeclaa saa u maleeyay inaa hoos ku soo qortaan duu ilaahay oo sar ogolaado ma salaam